xarunta cilaajka ee Sheekh Cali Mukulli waxaa si maalinlaha u yimaada boqolaal qof oo isugu jira haween iyo rag kuwaas oo u soo doonta sidii loogu dabiibi lahaa Qur'aanka Eebbe isla markaasna la irdarnaa xanuuno ay keeneen jinka xasadka isha iyo xanuunada kale ee ruuxiga ah waxaa jira dad badan oo ku caafimaaday xarunta cilaajka intay socotay shaqadu waxaana sidoo kale xusud mudan in dadka xarunta cilaajka imanaya ay ku jiraan kuwa ka yimid dalka dibadiisa isla markaasna xarunta ku caafimaaday kadib markii lagu dul akhriyay Qur'aanka Eebbe Sheekh Cali Cabdiraxmaan Cali Mukulli oo ah maamulaha xarunta cilaajka ayaa talooyin la xiriira sida ay uga xijaaban karaan dhibaatooyinka la damacsan yahay ummadda muslimiinta ah waxa uu u jeediyay haweenka xarunta cilaajka u yimaada dabiibka cadow fara badan baan leenahay diinteena cadow ku ah caafimaadkeena cadow ku ah shaqadeena cadow ku ah hantideena cadow ku ah awlaadna cadow nagu ah sida ma hadee cadowgaas maxaan dhufays kaga galaynaa maxaan hub u qaadanaa hubkeena iyo dhufayskeena waa adkaarta nabiga kaleey salaatu salaam waa weysada nabiga noo sheegay kaleey salaatu salaam qofka ma seexdo hadduu weysaysto oo adkaarta nabiga sheegay kaleey salaatu salaam akhristo ilaa ilaahay waa xifaadeenaya malaa'ig baa loo soo dirayaa shaydaan kama qaalib noqonayo nooc walba oo sixir ah jin nooc xasad waxay doonaan ha noqdaane ilaahay wuxuu kaga badbaadinayaa weysada uu weysaystay iyo sunnaha nabiga kaleey salaatu salaam adkaartu nabiga qaatay waa ka badbaado maxaa kala dardaarka nabiga kaleey salaatu salaam guriga lagu akhriyaa suuratul baqara saddex maalmood shaydaan ma soo galo nabiga kaleey salaatu salaam shaydaan wax loo soo dhiibay iyo mid adiga ku dhibaayaba mid doona ha noqdee ilaahay wuxuu kaaga badbaadinayaa sharkooda ee waxay wadaan oo dhan inuu guriga albaabkiisa ay soo gali karin soo nin caweyn nolosheega ma soo sida ma walaalayaal sheekha oo si hadlayay ayaa alle ummadda islaamka uga bariyay inuu ka xijaabo wax kasta oo dhibaato ah oo la damacsan yahay waxaana dhibaa ilaahu naga qabo حاسدين تلاه ونايقبه حاسدين تلاه ونايقبه صاحرين تلاه ونايقبه سحركم إله بابي وحي قرقريين وحي حرين وحي عفوفين وحي قريين با إله بابي آمين لها الله بابي عذو مسلك إله بابي نوع والبيه وحي حبينك السمينة يعني ما نت وحي السمينة إله بابي لقرته ذي قيانه وحي مليقة إله بابي سحر الله من ليبان إله ذا نوشة إله بابي لقرته ذي قيانه إله يوكعلي وحي أنك نوص سمينة ساحرين تلاه يوكعلي آمين لها الله كعليو وحول بو إسلام كي وسمينا إله كعلي كوبا شقده كويستا إله كفرفر كوبا حيوقه كيستا إله كفرفر كوبا عباده كيستا إله كفرفر كوبا عافماتك كيستا إله كفرفر كوبا دش كيستا إله كفرفر الله كفرفر عدوغان لا أركي إله نايقبا جنكا لا أركي إله نايقبا دغرتود إله نايقبا إله وادان كبر إله نايقبا حسدك إله نايقبا إله إيشود نغا إلالي عربكود إله نغا إلالي أدكود إله نغا إلالي مسلم كمل والبجا إله بدبادي إيمانكود إله بدبادي عباده إله بدبادي عملكود إله بدبادي دغرتا شياطينتا iyo xaasidiinta iyo magaranaysa nooc walba oo magaranaysa gaalada ee malaga ilaahu naga ilaali kuwa ustaalada jif ilaahu caafi kuwa guriyaha jif ilaahu caafi inta muslim oo xanuunsan adduunyada ku nool ilaahu caafi inta xanuunsan ilaahu caafi inta badaysan ilaahu soo hanuuni inta muraad ilaahu muraadkooda si macsiyan ahayn ilaahu si muraadadan ilaahu noo wada sahal ilaahu qaatumada qeyr nagu dhamay حسن قاتم إله ونقدل في المدى آفات كمصائب الدنيا كدع إله ونجي إلهي مصائب الدنيا كدع إله ونجي إلهي كتاب كله كوا ميت تكسس إله ونقدر كوا ميت تكسس إله ونقدر كوا قبر إله واسع إله ونقدر كوا عرش الرحمن أهرس ما نت يوم القيامة عرش الرحمن هرسنا إله ونقدر كوا الجنة حساب الآن قال إله ونقدر كوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام إله ونقدر aragtida ilaahay qiyaamaha ku arka ilaahu nagu dar ilaahu ku arka qiyaamaha ilaahu nagu dar ilaahuna badbaadi inkasta oo muddo kooban uu joogi doono Sheekh Cali Cabdiraxmaan Cali Mukulli ayaa haddana waxaa shaqo dardar la ay ka socotaa xarunta cilaajka Sheekh Cali Mukulli ee magaalada Boosaaso taas oo ku taala bariga magaalada